madax dhaqameedka waayeelka dhalinyarada iyo aqoon-yahan iyo waliba waxgalad kale oo ka soo jeeda beelaha waqooyiga gobolka Sanaag oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Ceyrgaabo ayaa waxay baaq nabadgelyo ka soo saareen shaqaaqo dhimasho iyo dhaawac dhalisay taasi oo dhawaan ka dhacday deegaanka Shidan ee buuraleyda waqooyi bari ee gobolka Sanaag. Shaqaaqadan dhimashada iyo dhaawaca dhalisay ayaa halkaasi ku dhex martay dhalinyaro ka soo kala jeeda beelaha ku dhaqan deegaankaasi, waxaana madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii halkaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa. halkan waxaanu ku qabanaynaa baaq nabadgelyo oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday Shidan area waxaanu ummadda u sheegaynaa, reer barina u sheegaynaa, wixii danaynayana u sheegaynaa in aanu diyaar u nahay sida guddida warsangeli ee laasqoray ka hadashay aanu ku taageersannahay, annaguna u diyaar nahay inaannu saaka oo sabti ah sii dayno bishuna 30 tahay baaq nabadgelyo oo ku saabsan shaqaaqada Shidan ka dhacday oo aan cidina u tashan kolley si qaldan u dhacday waxaanu diyaar u nahay una soo baxaynaa wafdi aan tiro yaraynina u soo baxayaan maanta ama berri shaqaaqada ka dhacday nabadgelyo inaannu ugu soconno, baaqana u sii daynayno, safarkeediina u soo baxayno. nin kasta oo dhibaato ka wada ama shaqaaqadu inay sii socoto doonayana waxaanu leenahay labada dhinac oo labadii reer meesha shaqaaqadu ku dhex martay labaduba waxay diyaar u yihiin in dagaalka halkaa lagu afgooyo, is-afgaran waagana lagu jaro meeshiisa. waa sida loo soo sheegay, nabad baanu u soo qoor taagnay, nabadda inaanu ka shaqayno, baaqaa horena waanu taageeray. inta taageeraysaana waa inta dantu kaga jirtaa, inta shaqaynaysaana waa inta dantu kaga jirtaa. baaqa waxaanu ula habsaanay oo dib nooga dhacay waxa weeye waxaanu ka shaqaynaynay inaan wax dambe dhicin, si aanu dad diray oo cid diray oo aanu halkaa lama dhaafi karo, xabad dambena ma dhici karto. taana waa ku guulaysanay, tan dambena insha Allah waa ku guulaysan doonaa. halkan waxaanu isugu nimi haddii aanu nahay beesha Habar Yoonis bari nabadgelyo inaanu baaq nabadgelyo jeedino, baaqaasoo ku salaysan dagaalkii ka dhacay bariga xeebta bari, dagaalkaasoo ah dagaal aan cidi ku talagelin ee si khaldan u dhacay. dagaalkaa wixii dhintay Allah u naxariistaanu leenahay, wixii dhaawacmana Ilaahay ha caafiyo. dagaalkaa waxaanu ku baaqaynaa in halkiisa lagu joojiyo, horena qayb baanu uga qaadanay joojintiisa, iminkana waxaanu diyaar u nahay inaan dagaal dambe halkaa ka dhicin. waxaan halka u nimi inaannu baaq nabadgelyo bixinno haddaannu nahay beesha Habar Yoonis bari. beeshii kalena waa ku baaqday, waydinla qaadannay, waana imanaynaa. guddi baa qaybsan, ergadii tegi lahayd waa naga qaybsan tahay. waxaan anigu weliba halkaa ku sii darayaa dhallinyarada qorayga sidata ee labada beelood ka tirsan ee shayddaanku isu geeyey inay dagaalka halkaa ku joojiyaan. inta joogta iyo inta maqaniba baaqaa waa sidaa, inta joogta Habar Yoonis bari, halka joogta iyo inta maqaniba ee Ceyrgaabo joogta, ee Cal joogta, ee meel kastaba joogta, ee Habar Yoonis bari baaqaa meesha la isugu soo baxay waa sidaa. inteena kuma koobna, waa mid la go'aansaday oo ka soo go'day mid yar iyo mid weynba. nasiib darro waxaa kii lagu yidhaahdo waa dhintay ama waa dhaawacmay dhinac kastaba ha noqdee weyna hebel oo qofka aan garanayni, ka bariguna wuu garanayaa, ka ayaga gacanka joogana wuu garanaya. waa nasiib darro, caqligu ha shaqeeyo. baaqaa aanu sidno waayeelkaa bariguna nooga horreeyey, inkastaanu ordaynay waa nooga degdegteenay. waa ku mahadsantihiin. maanta waa la leeyahay halkan baaqaa aanu jeedinayna waa naga run. waxaanu leenahay dhinacan iminka aanu annagu odayaasha u nahay, waxaanu leenahay oo go'aansanay in xabadda la joojo. raggaa dhallinyarada ee markii hore bilaabay inay joojaan ergaanu diraynaa, waxaanu diraynaa rag joojiya dagaalka, waanuna diray horaantoodii, inta kalena way baxaysaa. waxaanu go'aansanay annaga xaggayaga in dagaalkaasi ka joogsado, inanaan ogolayn dagaal sii socda, inan aanan dabada ka wadin, inan cidina wadin. waa dagaal iska dhacay, dahab yar ka dhacay. marka waxaan codsanaynaa
dhinaca kalena in sidoo kale ergadii shalayna la soo hadashay aanu wada hadalnay aanu meel wax dhiganay iyana way soo baxayaan annuna waanu baxaynaa meeshii baa la isugu tegayaa wixii dambe markaa hadal qaba ama maxay ahayd halkaasaa lagu wada hadli doonaa beelaha aanu walaalaanahay dhinac kastaba ha naga xigeen inay kula noolaadaan nabad wax ka wanaagsani ma jiraan nabad la'aan lama seexdo laguma xaragoodo laguma tukado nabad bay qaadatay halkan waxaan uga tacsiyadaynayaa dadkii ku geeriyooday shaqaaqada shidan intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha ka boogadhayo waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo qorigu yaanu shaqaynay caqligu ha shaqeeyo baaqaa nabadeed ee lagu baaqay waa baaq aanu soo jeedinnay waa baaq aan shuruud lahayn waxaanu leenahay intii dhimatayna sabadii imaan ilaahay giddigaahay naga wada siiyo intii dhaawacantayna ilaahay ha shaafiyo waxaanu leenahay meeshaas wixii ka dhacay dhace wixii dambena in la hor joogsado ayaa waayeelku ku taliyey annaguna aanu ku garab taagannahay waxaanu leenahay xabaddaas ha la joojiyo waa waayeelkii beesha habar yoonis bari waxay ku baaqeen nabad waxaa ku xiga in maanta la tago goobtii la tago waxaan ugu baaqaynaa beesha warsageli annagoo labadeeduba isku beelanahay in nabadda la qaato waa ka dhab beeshu inay maanta nabad qaatay waa maqlaysaan waayeelkeedii waayeelkuna waa boqoolaya wuxuuna qabanayaa goobtii waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu hawsha qaboojiyo ilaahay baa mahad leh maanta ina garansiiyey inaynu halka isugu nimaadno innagoo ka jeedinaynaa baaq nabadgeliyo oo ku saabsan mashaqadii ka dhacday shidan eriya waxaannu leenahay marka hore mashaqadaa wixii ku dhintay allah ha u naxariisto wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo waayo waa colaad wax la yidhi colaadu waa mugdi erga wow maradhaamo nabaddaa ka macaan maanta nabadgelyaannu wadnaa nabadgelyaannu u soo baxaynaa wax laysku ogaa ma aha ilaahay waxaannu ka baryaynaa in ilaahay nabadgelyada aynoo aslixiyo xaggana looga soo baxay xaggana looga baxayo ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha beelaha habar yoonis bari cabdinaasir cali jaamaca halka waxaa baaqan qabanaya guurtida habar yoonis bari cuqaasheedii waxgaradkeedii aqoon-yahankii iyo xildhibaanadii baaqban halka nabadeed baan ka jeedinaynaa dhibaatada ka dhacday shidan oo aan hore loogu talagelin oo dhacdo bay ahayd baaqaasaan nabad baanu diyaar u nahay in arrinta laga shaqeeyo waxaanu taageeraynaa baaqa ka soo baxay badhan iyo laasqoro odayaashii xaggayga diyaar baan in meesha la tago oo maanta la baxo oo arrinta aanu nabad ku dhammaynaan diyaar u nahay dadka deriska waxaanu diyaar inaan nabad kula nool dhinac kasta ahaadee dadka deriska habar yoonis bari waxay u diyaar u tahay inay nabad kula noolaato dagaalkaasina waxa dagaal aan lagu talageynayna si kaysaa u dhacay aan la qorshayn haddeer waxaan leenahay wixii ilaahay dhintay ilaahay u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay baskiyo anana diyaar baan nahay dhammaan